nin wuxuu leeyahay maanta waxa haboon iyo manhajka haboon inuu qaadan ay munaasab ka tahay ee wax ku bedeli karo ee wax ku qaban karo ee dibka jira ee wax kaga qaban karo waxa weeye in xukuumaadka la daba taagnaado jihaadna loo kaadiyo warku waa fahanteen baylata dariiqa iyo wasiilada aan adeegsanaynin in muslimiinta wax kaga qaban karo horumar aan ku gaari karo gaalana iskaga dhicin karo maantana muslimiinta lagu sixi karo dib habayn waraaqaha la isku ratibi karo waa in xukuumaadka madaxweynaha laga dambeeyo sam'an wa ta'an madaxweynaha ama nabadbooti ama nakici aday ku taala nimanka salafiyada jadiida loo yaqaano way warka waa fahanteen baylata salafiyada jadiida ama xadaadiyada ama jaamiyada nimankaas halkaas ay mareen waraggiina dagaalamaya qoriyaha tuuraya sheekh usaamiye raggiisi iyo shabaab iyo maxaakim iyo islaax iyo akhwaan muslimiin iyo xisbu tahriir oo waxba keeni weydo waligiin waa socoto waxba idinka socon waaye isdhiibo madaxweynaha daba istaaga niman halkaas ku baxeen maxay isku hayaan waxa la isku hayaa manhajka iyo qaabka maanta wax loo bedeli kara qaabka ugu munaasabsan waxa weeye in xukuumaadka laga dambeeyo niman baa ku baxay warka waa garateen baylata waxaa isku soo haray nimankii loo yaqaanay tabliiq akhwaan almuslimiin iyo furuucdii ka baxaya fara badnayd wadaadihii la odhan jiray maxay ahayd saruuriyiin qudbiyiinta qeybo ka mida xisbu taxriir xisbiga loo odhan jiray itixaad waa amhilan oga jeeda lakin inaad fahantaan ma rabaa yani sida la yahay amhilan oga jeeda nimankaas isku soo hadhay tabliiq waxay yidhaahdeen manhajka u habboonay maanta wax lagu qaban karaa waxaa weeye in jihaadka loo kaadiyo ummadda aan la dhihin waxaan xun iska daaya shirkooda faraha ka qaad zinadooda ha taabanin faraha ka qaad dadka in ama khayrka la faro la jeclaysiiyo cahd almaki sidiisii loo celiyo kaadi ilagan shaqayn mayso anfaal u kaadi suuratu maa'idiya howlaheeda iyo xugum iyo howlaha jooji manhajka munaasabka waxaa weeye in la dikriyo ummadda la dhex qaado khuruuj fi sabiili illah markaynu dhex soconnana alamru bilmacruuf nahyi can lmunkar meesha kuma jirto aniga xaqiiqo badan baa tabliiqaya afar arbacinaad baan la baxay afar arbacinaad baan la baxay 160 maalmood ayib si kastaba noqotee waxay leeyihiin aayar dariiqu ljihaad ama ariiqan aan ariiqa tabliiq ka ahayn waa ariiq masduuda fiihi ashwaak shaa'ika waa lagu jari ha la wardiyo iimaaniyaadka ruuxniyaadka hala dhiso muslimiintana ha loo celiyo cahd almaki dacwadii nabi maxamed maka ka wada tiibay hadda marayaan madiina weli maysan gaadhin axkaamtii madiina soo degto dhan waa kaandho miyaan dhahaa waa kaandho wey tabliiq halkaasay ku hadheen warkooda waa taqaanaan waa niman akhlaaq badan oo khayr badan lakin waxaan ka hadlaynaa masaa'il manaahij takyiiriyaan ka hadlaynaa hadda taas kuma jireen haddaad tiradaan wadaadku qolii ku xadgudbay waad leedihiin waan saxaya waxaan khalday laakiin amhilaan oga jeeda waxaa kuu soo hadhay marka tabliiqna bartaasay ku baxeen niman hadda jihaad diyaar u ah maba ahaba bal waa caqaba fi dacway taagan yihiin dacwo dhan baabi'inaya waxaa isku soo hadhay wadaadihii aaminsanaa dariiqa u wanaagsan maanta waxaa isku soo hadhay ujeedaa xisbu taxriir ay akhwaanka qaybihiisa fara badnaa itixaad saruuriyiin wad alqaacido wixii uun ka dilaacay adduunka o dhan soo ururi nimankaas qaybo ka mid ah oo weliba ragga daalay u badan waxayna dariiqa maanta u munaasabsan ee wax lagu qaban karo muslimiintana wax lagaga bedeli kara waxaa weeye in dowladaha la mushaarakayo la galo majaalista baarlamaanka la galo wasiiro la noqdo xildhibaano la noqdo ra-iisul wasaare idan markay dowladda dhex galo min khilaali dowla wa min khilaal ra-iisul wasaraa wa majaalis niyaabiya wax laga bedelo dowladda saa ay ku qabsanaba adugu qaadu noqo kan ra-iisul wasaare ha noqdo kan ha noqdo baarlamaanka ninku haya speakerka ha noqdo kan ha noqdo hadhow dowladdu ha dareentaa iyadoo wadaada'aba bad bay dhex fadhidaa barnaamijka waxaa qaatay
بعد الشيخ حسن البنا مركو انت كذب ولا اختياري وحي كدن بي رق وبنا اخوان المسلمين برامج قاتل قيبير او كانفصال او كغاي او مصر كدن بي جماعه اسلاميه واغ دنب وبطي او واغ دنب افغانستان halka ku dambeeyay mooyeen inta u badnay rag yar oo asigu habsoomay oo khad tareenka ba ka dhacay mooyaane badankood halkaas ay mareen awood badan waxay ku yeesheen masar waxay awood badan amkan ku leeyihiin urdun ajabal islaami waa taqaanaan jabal amal islaami inay man filaya kuwait oo dhan bay haraaciyeen sacuudiga laftu intay galeen bay mar khalkhal galiyeen oo ku farabateen jaamacaadka hadda iyaga u badan hawlahaasay ku tageen laakiin waa barnaamij fashilan way isagoon ragii ay u muuqatay inay hawsha fashilantahay akhwaanku ay ku dhaqaaqaan waxbana ka soconaynin amankana wax ka qorey soo taagan waxa kamid ah sheekh maxamed qut حفظه الله تعالى نكاسا كمده طيب iyo walaalkii oo ninkii la iqtiyaaray la dilay sayyid qutbi ashahid ragaasa kamida rag badan baa hawsha ayuu ka soo laabtay oo arkay inaysan hawsha soconayn sayyid qutbi asun hawshu fashilmin oo waliba in akhwaanku isdhiibin oo dawladda aysan gelin oo aysan barnaamijka musallax aysan ka laabanin yaa la dilay ninkii goobjoog ahaa hawshu dhanba xarf uga warramay ninkaas weey hadaba nool rag badan waa leeyahay culimo fara badan barnaamijkiisa waxaan rabaa in kaliya inaad fahantaan yani qaabka isku khilaafeen dadkii doonayay in wax la bedelo ee maaha inaan hadda ama jamaaca naqdinayo ama aan mid amaanayo halkaas ay u bateen waxaa ku qayb kamid ah maada waxaa qaatay xisbu taxriir hadda ku badan hadda malindi iyo ku badan ma kayama ka hadlayaba koostiga aad bay u joogaan wana ku fara badan yihiin xisbu taxriir akhwaanka ka wanaagsan xagga manhajiyada ahaan iyo aqeeda ahaan ayaga dhaama akhwaanka aad u dhaama tayib ninkii loo jeeray hebelka nabhani ayaa asaasay ayaguna mabda'aas ay qaateen haddana iska baabeen wax yar oo ku dambeeyay ingiriiska iyo caalam islaami meel joogo ma iska baabeen xarakada u balaanan u awood badan hadda caalam islaami waa nimanka aqoon muslimiinka oo hadda intaas oo qayb noqday saybay jideen meel bay ku hadhay waxaa soo hadhay wadaadaha aaminsan dariiqa u wanaagsan ee maanta wax lagu bedeli karo waxaa weeyaan wixii nabi maxamed wax ku bedelay dacwa iyo jahal wada socda rasaa'il iyo muxaadaraad iyo dacwo iyo xabad wada socota asmi iyo eeba aan la kala reebaynin nimanka waa fara badan yihiin qaybo ka gooy akhwaan muslimiinka waa qaateen oo sheekh cabdalla cazaam kamid ahaa iyo rag fara badan inkastoo akhwaanku leeyahay nagama gooy inaan xubin naga tirsan buu ahaa hawsha waa hawla iska tandiim iyo idaara iyaga aan la weydiin anigu xaqiiqada ma sheegi karo adoo almuhim rag badan oo noocaas ahaa oo reer falastiin u badnaa iyo masar u badnaa oo akhwaanka ka go-ay iyo aljamaaca alislaamiga loo oran jiray amankan ba qaybo kamid ah isdhiibeen oo hadda u toobad keeneen xusni mubarak u toobad keenay qaybna ayman dawaahir raggiisa ay baxeen iyo alqaacidin nimanka loo jeedo dhanka u dhaqaaqay iyo itixaadka qayb kamid oo ka farcanto shabaab la goono u go-ay ragga noocaasa waxay aaminsan yihiin asmiya eebayaan la kala reebin manhajka u habboonee maanta wax lagu sixi karana waxaa weeye dacwo iyo xabad wada socota daw ma kala reebin intuu dul fadhiiso dhii ma islaamaysaan maya gala الدعوة قبل القتال بصعونيس ترى هذا الله ما يدعي الإسلام هو هذا قاري بوش هذا قارسيب إسلام إذا ما أنت مقال أنكور قبل الإسلام وحي حقائق دي سقيبك بدون كمذا أن أقول مجرا الدعوة عامة الجميع ما أنت وحلاب بهاي هل كانوا أعدوا لهم ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم حبط بنا كلا صار يسقاني منك أمي سبا يقصار اسكسوا العليو إسلاميين وحكوا كلا بحن وحاوي maxaynu bulshooyinka muslimiinta maanta dunida ku nool go'aankeen ka qaadana magaala ama waa muslimiin oo ku kala baxeen waxay kala baxeen maanta waa maxay manhajka munaasabka ah ee ku haboon in wax lagu bedelo waa ku kala tageen labada qadiyo ayaa asaas u ah khilaafka islaamiyiinta dhan wixii kale waa iska furuuc inta markaad fahanteen kadib aan mawduuci u soo laabto mise waqtiga iga dhamaad هذا وبالله التوفيق لفتك يجب حقيقي حل دم إن شاء الله